Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. Cashirka waa lesson 34. Cashirkii 34 waxa uu ku saabsan yahay preposition. Preposition meeleeye. A preposition meeleeye shows waxa uu tusaa the relationship xidhiidhka between ka dhaxeeya other words ereyada kale in a sentence oo jumlad ku jira. Ereyada kale ee jumladda ku wada jira xidhiidhka ka dhaxeeya ayuuna tusaa prepositionka ama meeleeyaha. Prepositions meeleeyayaasha tell you waxay kuu sheegaan where something is meesha uu shay yaallo, and the location meesha, or ama direction of movement or travel, and jihada uu shay u socdo, or ama when something happen xilliga ama goorta uu wax dhacay, yacnaha time waqtiga. Marka prepositionka waxa uu noo sheegaa meesha ama locationka ama direction of movement ama timeka. Marka prepositionada noocyo badan ayaa loo qaybiyaa, laakiin sida qaalibka ah inta badan waxa ugu muhiimsan preposition of time meeleeyaha oo waqtiga noo sheega, preposition of direction of movement prepositionka oo noo sheega jihada oo markaasi loo dhaqaaqayo ama uu wax u socdo, iyo preposition of place or location ama prepositionka ama meeleeyaha oo na tusaya booska ama meesha uu shay yaallo. The meaning of the preposition often changes. Macnaha oo prepositionka inta badan wuu isbedelaa according iyada oo loo fiirinayo to the context macnaha guud ama xaaladda markaasi taagan ee laga hadlayo. The meaning macnaha of the preposition ee meeleeyaha often inta badan changes wuu isbedelaa according iyadoo loo fiirinayo to the context macnaha guud ama xaaladda markaas taagan ee laga hadlayo. Preposition of place meeleeyaha oo na tusa booska. On waxa weeye waa preposition, waa meeleeye waxa uuna tusaa booska uu shay yaallo. Tusaale ahaan, the ball is on the table. The ball is on the table. Kubadda miiska ayay dul saaran tahay, marka booska kubadda ayuu noo sheegayaa. In the ball is in the box. In waa preposition waxa ay noo sheegaysaa kubadda in ay boxka ku dhex jirto. The ball is in the box. Kubadda waxay ku dhex jirtaa boxka. At waxa weeye preposition meeleeye marka preposition of place uu yahay oo meel uu noo sheegayo waxa uu noo sheegayaa meel kooban. Sida suuqa oo kale marka aad joogto waxaad dhihi kartaa I am at the market. Suuqa ayaan joogaa. Markaasi haddii uu suuq yar yahay oo kooban markaasi waxaad isticmaali kartaa at. Laakiin haddii uu suuq aad u weyn yahay markaasi in ayaa la isticmaalayaa. Are you at the market? Ma waxaad joogtaa suuqa? Are you at the market? Suuqa miyaad joogtaa? Waxaad dhihi kartaa haa ama waxaad dhihi kartaa no, I am not at the market. Suuqa ma joogo, but laakiin I am at the airport. Waxaan joogaa airportka. Under waa preposition waxa ay noo sheegaysaa booska kubadda. The ball is under the table. Kubadda waxa ay ku hoos jirtaa miiska. The ball is under the table. Kubadda miiska hoostiisa ay taallaa. Above waa ka sarreysa. The plane is above the cloud. The plane is above the cloud. Diyaaradda daruurta ayay ka sarreysaa. Below waa ka hooseeya. The birds are below the cloud. Shimbiraha daruurta ayay ka hooseeyaan. The birds are below the cloud.
preposition of direction meeleeyaha oo jihadana tusaya ama jihada noo sheegaya. The children are going to school. Marka to waxayna noo sheegaysaa carruurta inay dhanka iskuulka u socdaan. The children are going to school. Carruurta waxay u socdaan iskuulka. Into. Into waa preposition waxayna noo sheegaysaa jihada ama directionka uu wax u socdo. Marka tusaalahan, he is diving into the box. He is diving into the box. Boxkii ayuu madax isugu tuuray. Dive waxa weeye marka aad wax isku tuurto sida biyaha oo kale ama aad madax wax isugu tuurayso. Marka he is diving into the box. Boxkii ayuu madax isugu tuuray. Preposition of direction. From. She came from Brazil to see you. Marka from waa preposition ama meeleeye oo tusaya meesha uu wax ka yimid ama uu ka imanayo. Waa direction ama jiho. She came waxay ka timid from Brazil, dalka Brazil ayay ka timid, to see you si ay kuu aragto adiga. She came from Brazil to see you. Preposition of time meeleeyaha oo noo sheegaya waqtiga. In marka loo isticmaalayo in waqti ay noo sheegayso waxaa loo isticmaalaa sida time of the day, waqtiga maalinta ama gelinka maalinta. Tusaale ahaan, in the morning subaxii, in the morning subaxii, ama in the afternoon galabkii, ama in the evening maqribkii ama fiidkii. Sidoo kale months bilahana waa loo isticmaali karaa. Tusaale, in June bisha lixaad dhexdeeda. In June bisha lixaad dhexdeeda. In July bisha toddobaad dhexdeeda. I will see you in July. Waxaan ku arki doonaa bisha toddobaad dhexdeeda. Sidoo kale seasons xilliyada. Seasons waa xilliyada, waa afarta xilli: guga, dayrta, jiilaalka iyo xagaa. Afarta xilli oo loo isticmaali karaa. In the winter. In the winter xilliga qaboobaha. In the summer. In the summer xilliga kulaylaha. Sidoo kale years sanadyadana waa loo isticmaali karaa. In 1991. In 1991 sagaashan iyo koodii dhexdeeda. Sidoo kale tobaneeyada sano ama decades waxaa la yidhaahdo waa loo isticmaali karaa sida in the 80s, in the 90s, in the 70s. Sidoo kale centuries qarniyadana waa loo isticmaali karaa in the 21st century. On marka loo isticmaalayo as a preposition of time waxaa loo adeegsadaa sida dates, taariikhda. Marka taariikhda laga hadlayo waa la adeegsadaa oo waxaa leeyahay on June the 14th bisha June 14keeda. I will come to see you on June the 14th. Waan iman doonaa si aan kuu arko bisha June 14keeda. On July the 10th. On July the 10th. Days maalmahana waa marka laga hadlayo waa la adeegsadaa sida on Monday isniinta. On Monday. I will see you on Monday. Waxaan ku arkayaa isniinta. Sidoo kale on Tuesday. On Tuesday talaadada. At preposition of time meeleeyaha oo waqtiga. At marka at loo isticmaalayo as a preposition of time waxaa loo adeegsadaa specific time, waqti gooni ah. Specific time waa waqti gooni ah. Tusaale ahaan, at 7 o'clock. At 7 o'clock. The meeting will start at 7 o'clock. Kulanka waxa uu bilaabanayaa in 7 fiidnimo. At 9 a.m. At 9 a.m. At 9:30. At noon. At
noon waa duhurkii. Noon waa 12 duhurnimo ama 6 saac ee duhurnimo. At noon. Marka at as a preposition of time waxaa loo isticmaalaa specific time, waqti oo markaasi gooni oo khaas ah. Prepositionka waxaanu soo sheegnay hadaayay in macnahooda inta badan uu isbedbedelo. Prepositionada ama meelayaasha macnahooda inta badan uu isbedbedelana waxaa ugu badan in, on, at. In, on iyo at waa markaasi prepositiono ama meelayaal inta badan soo noqnoqda. Mararka qaarkoodna ardayda marka ay baranayaan Ingiriiska ay ku yar wareeraan sida loo kala isticmaalayo, sababtoo ah kulligood isku si ayaa loo isticmaalaa, laakiin wax yar ayay ku kala duwan yihiin. In waxaa loo isticmaalaa inta badan for general, waxa guud ama something that is big or large, wax weyn ama wax ballaaran. Sida waddan oo kale, haddii aad ka hadlayso waddan inaad joogto, in ayaad isticmaalaysaa, ama magaalo caasimad ah, in ayaad isticmaalaysaa. Sida tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dhahdo waxaan joogaa Hargeysa, waxaad dhahaysaa I am in Hargeysa. Ama haddaad rabto inaad dhahdo Muqdishoan joogaa, I am in Muqdisho. Haddii aad doonayso meel khaas ah oo markaasi Muqdisho ka mid a inaad tilmaanto, on ayaad isticmaalaysaa. Marka on way ka kooban tahay in, oo maadaama in aan dhahnay wax weyn ama wax ballaaran ayaa loo isticmaalaa, on way ka yar tahay oo way ka kooban tahay sida sawirka ka muuqata, laakiin atna way ka ballaaran tahay. Marka on, sida jid hebel ayaan joogaa haddaad rabto inaad dhahdo, waxaad dhahaysaa I am on Maka Al-Mukarrama Street. Waxaan joogaa jidka Maka Al-Mukarrama. On markaas ayaad isticmaalaysaa. Marka meel jidka Maka Al-Mukarrama ka mid ah oo gooni ah haddii aad rabto inaad sheegto, at ayaad adeegsanaysaa, maadaama at ay kasii kooban tahay oo ay tahay specific ama wax khaas ah. Waxaad dhahaysaa kaba soo qaad hotel Maka Al-Mukarrama ku yaala haddii aad rabto, waxaad dhihi kartaa I am at the Plaza Hotel. Waxaan joogaa hotelka Plaza. At ayaad adeegsanaysaa sababtoo ah waa meel khaas ah. Marka at meelaha kooban ama khaaska ah u isticmaal. Tuulo yar baan joogaa haddii aad rabto inaad dhahdo, at ayaad isticmaalaysaa. I am at so and so village. Waxaan joogaa tuulada so and so. At wax kooban ayaa loo isticmaalaa ama wax yar. On sidoo kale gaadiidka dadweynaha marka la isticmaalayo waa la adeegsadaa, sida basaska oo kale, tareenada marka aad saaran tahay ee ay socdaan. Haddii aad rabto in aad dhahdo inaad haddii aad rabto in aad dhahdo baska ayaan saaranahay, on ayaad adeegsanaysaa. I am on the bus. Baska ayaan saaranahay. Tareenka haddii aad saaran tahay, on ayaad adeegsanaysaa. I am on the train. Laakiin hadduu gaari yahay, in ayaad adeegsanaysaa. Gaari yar oo kooban haddii aad ku dhex jirto, in ayaad adeegsanaysaa. Sidoo kale xafiisyada oo kale, xafiis gooni ah oo khaas ah haddii aad joogto, waxaad dhihi kartaa at ayaad adeegsan kartaa. I am at the office. Waxaan joogaa xafiiska. Sidoo kale xafiis weyn haddii uu yahayna, in ayaad adeegsan kartaa. I am in the office. Inta aynan soo gabagabaynin barashada prepositionka ama meeleeyaha, waxaa xusid mudan ereygan by inaan soo qaadano. By wuxuu ka mid yahay prepositionka ama meeleeyaha macnihiisa inta badan isbedbedelo ama jumladda macnaheeda bedeli kara. Tusaale ahaan, the package arrived by mail. Packagekan ama alaabtan waxaa keenay boostada. The package arrived by mail. Arrive waa soo gaadhis, marka packagekani wuxuu nagu soo gaadhay qaab boosta ah. Mail waa boostada. Marka bydan waxa ay tilmaamaysaa in packagekani uu ku yimid boostada. Jumlad kale,
This book was written by the president. This book was written by the president. Buuggani waxaa qoray madaxweynaha. By waxa ay noo sheegaysaa madaxweynaha inuu yahay qofka buugga qoray. You will finish learning English by next year. You will finish waad dhammayn doontaa learning barashada English Ingiriiska by next year. Sanadka xiga ama sanadka soo socda meesha lagu gaadho barashada Ingiriiska waad dhammayn doontaa. By waxay noo sheegaysaa waqtiga kama dambaysta ah ee aad dhammayn doonto barashada. Marka ereygan by macnihiisa wuu isbedbedelaa hadba jumladda uu ku jiro ama contextiga ayaa laga garanayaa meesha loola jeedo. Waxaan si fiican ereygan by usii baran doonaa marka aynu gaadhno oo aanu baranayno waxa la yidhaahdo active iyo passive voice. Active voice iyo passive voice waxaa la adeegsadaa ereygan by. Marka si fiican ayaanu u baran doonaa. Inta aynu cashirkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.